kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad daawan doontaana waxaa qayb ka noqonaya Cabdiraxmaan Ciro oo u hanjabay ciidankii Jabuuti ee lagu arkay xuduudaha Somaliland wajigabaxa jabhadaha Jabuuti ee Awdal dhaqdhaqaaqyo ciidan oo halkaas ka socday heegan buuxa oo la geliyay ciidanka Somaliland deni oo amray in la weeraro guriga General Jimcaale oo ah sargaalka ugu sareeya ciidanka dawladda ku sugan deegaanada Puntland abaabulkii ugu dambeeyay ee ciidan oo deegaanada Puntland durba ka bilowday cabsi xoogan oo halkaas ka jirta Muungab oo weerar ku qaaday farmaajo iyo kooxdiisa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay hadda ka socda magaalada Muqdisho dagaalka bariga dhexe oo gaaray meeshii u adkaa iyo Mareykanka iyo Iran oo wali la qorsheynayo in la kala qaboojiyo xiisadooda xogaha ugu dambeeya akhbaraadka caalamka sidoo kale waa daawan doontaan iyo wixii nagu soo kordha balse marka hore si aan faafahinta ugu gudagalno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share garayso leeg saarto meel fog gaarsiin qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee la xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan aynu ku soo gudbino adigoo rukumanaya barteena YouTube channel sidoo kale program balaalka digniinta aragtidana qaybta hoose faalada ama commentiga inoogu reeba waa hagaaga aynu ku bilowna ee waa 29 bisha June haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dulmarka aad ku daawateen markana adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi adigii ubadkaaga si sahlan ku barta quraanka kariimka markasul ihsaan online waxay diyaar la tahay barashada quraanka kariimka iyo shareecada islaamka 24 saac markaskan waxaa diyaar idinkugu ah macallimiin isugu jira rag iyo dumar xeel dheeryaal ay madrasadooda ka aflaxeen arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibadiisa si aad uga faa'iideysato fursadan qaaliga ah fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha Somaliland ayaa qaaday tallaabadii ugu weyneed oo hanjabaad culus ah oo uu u diray dhinacyada ay ishayaan Somaliland ee Jabuuti ciidanka iyo jabhadaha hubeysan ee dhaqdhaqaaqyada waday maalmihii la soo dhaafay Ciro ayaa tallaabo culus qaaday waxaana uu ku goodiyay in uu ka hortegayo qorshe kasta oo halis ah lana doonayo in lagu dumiyo jiritaanka iyo madax banaanida Somaliland waxaana uu ku hanjabay Ciro in uu tallaabooyin dheeraad u qaadayo sidii uu kaga hortagi lahaa qorshahan halista ah iyada oo ay socdaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay qalabaynta abaabulka iyo sidoo kale qataraha la xiriira jabhadaha Jabuuti ee Somaliland iyada oo waliba maalmihii ugu dambeeyay xogaha aynu heleynay ay muujinayeen in markaasi dhaqdhaqaaqyo waaweyn oo aad u culus ay socdeen iyada oo waliba loo qaadayo tallaabooyinka qaarkii si degdeg ah Ciro ayaa ku dooday in markaasi dhinacyadan ay ishayaan ee qatarta badan xambaarsan sidoo kalena hadda la muujinayo in ay markaasi si gaar ah u qaadayaan tallaabooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyadan halista ah waxa ay markaasi xukuumaddiisu qaaday tallaabooyin dheeraad ah oo ay ku soo afjarayso dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo dhowrkii maalin ee la soo dhaafay ay markaasi ugu kuurgalaysay xaaladda guud ee dhinacyadan sida gaarka ay isku hayaan Ciro waxa uu sidoo kale fursad weyn ka helay qaramada midoobe waxaana ay xukuumaddiisu ay soo bandhigtay maalmihii la soo dhaafay hub culus oo ay ka qabatay Jabuuti taasi oo ahayd mid sii kordhisay dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa ee la xiriiray dooda taagneyd waqtiyadii la soo dhaafay iyada oo waliba aad loo maareeyay xaaladda guud ee dhacdooyinka waaweyn oo la xiriira dhaqdhaqaaqyo aad u sii xoojiyay tallaabooyinkan xukuumadda Ciro ayaa sidoo kale hadda waxay qaadaysaa tallaabo kale oo dheeraad ah waxaana ay dardar gelinaysaa qorshayaal waaweyn oo la xiriirinayo in ay yihiin kuwii ugu horeeyay uguna cuslaa ee si degdeg ah waliba hadda loogu maareynayo xaaladan siyaasadeed ee aadka u culus iyo sidoo kale waqtigan ay xukuumadda Ciro ku jirto mid ka mid ah waqtiyada ugu adag ee lala xiriirinayo xaaladaha qatarta ah cadow badanna ay markaasi hadda yeelanayaan iyada oo ay dalal badan oo hor leh ay saxiixeen aqoonsiga tallaabooyinka Somaliland oo ah waliba kuwii ugu horeeyay ee u qaaday dhaqdhaqaaqyadan aadka u culus tan iyo markii lagu dhawaaqay
qorshaha aqoonsiga Somaliland waxay Djibouti qaaday tallaabooyin dheeraad ah taasi oo ka dhigtay mid sii adkaysay dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa iyo xaaladihii ugu cuslaa ee arrimahan loo qaaday taa oo haddana xoogga sii saaraysa weliba si gaar ah in lagu soo afjaro dhaqdhaqaaqyadan aadka u culus ee arrimahan diiradda lagu saarayay waqtiyadii ugu dambeeyey taa oo ka dhigan mid sidoo kale aad ay u xoojinayaan hadda xukuumadda Ciro marka la eego heeganka buuxa ee ciidamada Somaliland la geliyay iyo dhaqdhaqaaqyada aadka u culus ee hadda taagan. dhinaca kale haddii markan aynu eegnana dhanka Puntland, Deni ayaa amray in la hareereeyo guriga sargaalka ugu sarreeya ee dowladda Soomaaliya taageersan ee dhanka Puntland ku sugan. Jimcaale Takar oo ah markaasi sargaalka ugu sarreeya ee ciidanka xoogga dalka ama dowladdu ay taageersan tahay ee ku sugan goobaha qaarkii ee Puntland waxa ay yihiin kuwo isu soo tarayay waqtiyadii lasoo dhaafay dooda taagneyd iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadan guud ee la xiriirta tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee arrimahan ku saabsan. xogaha la helayo markaasi wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan dhaqdhaqaaqyadan waxay ahaayeen kuwo isu soo tarayay waxaana laga dareemayaa xaafado ka mid ah goobaha ay ciidanka dowladda taabacsan degan yihiin dhaqdhaqaaqyo waaweyn oo cabsi badan abuuray taasi oo sii adkaysay xaaladda guud ee tallaabooyinka ciidan ee ka socda deegaanada maamulka Puntland. waxaa la arkayay ciidan ka amar qaata madaxtooyada Puntland oo xaafadaha qaar dadka ku amraya inay ka guuraan aagga goobta uu degan yahay Generaal Jimcaale oo ah taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka oo dowladda taageersan taa oo ka dhigan mid sii xoojisay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee filla Soomaaliya ee ku wajahan deegaanada maamulka Puntland. weliba awood xoogan iyo galaangal siyaasadeed ayay Puntland gudaheeda ku yeesheen dowladdu marka la eego qaabka ay uga shaqeynayeen waqtiyadii ugu dambeeyey in ay galaangal ku yeeshaan gudaha maamulka Puntland taasi oo ka dhigan mid sii xoojinaysa dhaqdhaqaaqyo aad u waaweyn. waxaa la soo warinayaa in markan tallaabooyinkii ugu dambeeyey loo qaadayo dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee la xiriira tallaabooyinka ay uga hortegayaan sidii aysan ciidanka dowladda ugu fidin deegaanada maamulkaasi walow ay weliba hadda aad ugu xoogan yihiin meelaha qaarkii. haddana Deni ayaa ku doodaya in tallaabooyin dheeraad ah uu u qaado isaga oo kulamo la qaatay dadka iyo sidoo kale bulshada magaaladaasi ku sugan, siyaasiyiinta, taliyaashii hore ee ciidanka iyo cid kasta oo Puntland wax ku soo kordhin karta dhankiisa. waxa uu la qaatay Ciro iyo sidoo kale dhinacyadan kaleba si gaar ah Deni waxa uu markaasi saraakiil sarsare oo uu ka mid yahay taliyihii hore ee ciidanka iyo mas-uuliyiin kale uu ku xoojinayay dhaqdhaqaaqyadan sidoo kalena lagu soo afjarayo tallaabooyinkan waaweyn ee ciidanka ay ka wadaan. saraakiisha qaar ee ku sugan deegaanada maamulka Puntland waxaa laga soo xigtay in ay dhaqdhaqaaqyadan yihiin kuwii ugu waaweynaa taasi oo ka dhigtay mid aysan xilligan xal u heli karin dowladda Soomaaliya iska badaa tan Puntland marka la eego xaaladda siyaasadeed ee halkaasi ka taagan iyo weliba dhaqdhaqaaqyada isdiidan oo ah kuwii ugu dambeeyey. waxaana isdiidooyinkan waaweyn ay sababeen xaalado khatartooda wata iyada oo weliba ay taliyaasha ciidan ee ka soo horjeeda Deni dhammaantoodba uu ku eedeeyey inay iyagu yihiin kuwa ka shaqeynaya kala furfuridda ciidankii Puntland, tallaabooyin dheeraada oo gudaha Puntland laga sameynayo, abaabul culus oo hadda socda iyo weliba wax uu ku tilmaamay khatar ka jirta gudaha maamulka taasi oo uu ku sheegay ama ku celceliyey Siciid Deni inay tahay mid dowladdu ay ugu bareertay inay ku soo afjarto maamulka Puntland qalalaasana gudaha maamulkaasi ay uga abuurto. markana dhinaca kale haddii aynu eegno magaalada Muqdisho, duqa magaalada Muqdisho Mungaba ayaa weerar ku qaaday Farmaajo iyo kooxdiisii hore. gudoomiyaha golaha ama gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho
xasan maxamed xuseen mugaaba oo markaasi warbaahinta la hadlayay ayaa weerar culus oo dhanka afka ku qaaday madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo kooxdiisa. Mugaab ayaa si kulul ugu jawaabay kooxda nabad iyo nolol oo maalmahan eedo markaasi u jeedinayay dowladda federaalka, wuxuuna tusaale u soo qaatay dhacdooyinkii dhacay xilligoodii, gaar ahaan qaraxii ay dadka badan ku dhinteen ee Zobe oo uu tilmaamay in aan la iloobi karin sida uu hadalka u dhigay. Duqa Muqdisho ayaa sidoo kale sheegay in aan la qarin karin guulaha waaweyn iyo horumarka muuqda oo ay ku tallaabsatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. 500 oo qof ayaa hal maalin magaalada Muqdisho dhexdeeda lagu xasuuqay, markaas ay mas'uuliyiintii waqtigaasi maray gaduudan garbaha ku soo xirteen sida reer galbeedka, ayuu yiri duqa magaalada. Waxa kale oo uu ku sii daray horumarka dowladdeena gaartay dabool lama saari karo, arrintaasi waa mid dadka oo dhan u muuqata, ayuu yiri. Hadalkan waxa uu ku soo aaday xilli uu markaasi haatan sii xoogeysanayo loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo mucaaradka, kuwaasi oo uu haatan ka dhaxeeyo khilaaf xoogan oo ka dhashay doorashooyinka dalka. Inta badan madaxda Soomaalida iyo kuwa mucaaradka ayaa iska weerara warbaahinta iyo baraha bulshada, maadaama lagu jiro xilli adag oo kala guur ah oo ay taagan tahay xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa labada dhinac. Haddana doodaha ayaa gaara heerarka ugu sarreeya iyada oo isdiidooyin waaweyn weli ay jiraan. Tallaabooyinkan ayaana kuwii ugu dambeeyay ee arrimahan la xiriira. Ugu dambeyntiina haddii aynu eegno markan wararka caalamkana, xogo la helayo ayaa muujinaya in Iiraan ay qorsheynayso in la dilo madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Waxaa soo baxay kala qaybsanaan aan caadi ahayn oo ka dhex taagan golaha khubarada Iiraan oo ah hay-adda ugu sarreysa culimada diinta ee Iiraan. Ku dhawaad 3 meelood 2 meel xubnaha golaha oo ka kooban 88 xubnood ayaa soo saaray fadwo diimeed ay ku baaqayaan in la dilo madaxweynaha Mareykanka Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Fadwada ayaa sheegtay in ay waajib ku tahay muslimiinta in ay dilaan labadan hogaamiye haddii ay fursad u helaan. Waxaana maamulka golaha khubarada ay ku tilmaameen fadwadani mid aan caadi ahayn, iyaga oo sheegay in waxa ku qoran ay u baahan yihiin dood iyo sidoo kale falanqeyn dheeraad ah. Waxaa sidoo kale ay soo saareen xubno mayal adag fadwadani, waxaana lagu daray warqad loo diray shacabka Iiraan. Warqadaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in Tehran aysan ahayn inay ogolaato furitaanka marinbiyoodka Hormuz ama in barnaamijkeeda nukliyeerka lagaga hadlo wadahadalada ay la leedahay Mareykanka. 60kii cisho ee wadahadalada lagu dardargelinayay oo weli socda ayaa waxaa soo baxaya tallaabooyin kale oo sii horseedaya in xaaladan ay kasii darto, sidoo kalena la qaado dhaqdhaqaaqyo kale oo waaweyn, taa oo ah kuwo kasii daraya. Weliba lagu dhawaaqay hadda in la dilo madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Guud ahaan daawadayaal barnaamij wareedkeenina waa naga intaa.